mudaharaad looga soo horjeeday maxjar horay looga dhagax dhigay deegaanka Daarusalaam isla markaasina loo wareejiyay deegaanka Fardacune waa sida hadallada ay u dhigeen ayaa maantay waxa uu ka dhacay deegaanka Daarusalaam oo ah deegaan kamid ah deegaanada hoostaga degmada Galdogob ee gobolka Mudug maamulka deegaanka Daarusalaam Maxamuud Cabdulqaadir ayaa ugu horeyn ka warbixiyay sida arintaasi u dhacday bismillaahir rahmaanir rahiim wareen waxaanu halkaan bulshada deegaanka Daarusalaam ay isugu soo baxeen mudaharaadkan weyn aad ugu jeedaan waxay ka mudaharaadayaan bulshada deegaanka Daarusalaam iyo odayaasheedii waxgaradkeedii culimadeedii iyo hooyooyinkeedii wax deegaanka Daarusalaam uu lahaa oo hadda ka hor uu deegaamada Puntland intii faroole uu joogay xeeraa u soo kala baxay deegaanka Daarusalaam wixii u soo baxay ay mudneed xilligaasi waxay ahayd maxjar iyo meel lagu baaro haduu Ilaahay ku rooyahay haduu Ilaahay xoolaha deegaanka Daarusalaam maraya oo kastankii haduu Ilaahay ku rooyahay si shuruucda dawladda waafaqsan waxa la siiyay kastankii turdubi baa la siiyay degmada Galdogob Daarusalaam waxay qaadatay xilligaasi maxjarkii alxamdulilaahi rabbil caalamiin ayadoo hoojaasi aysan qabsoomin xilliga shaqadiina aanan fulin waxa dhacay maamulkii Farola waxa soo fulay haduu Ilaahay ku rooyay maamulkii Cabdulla Ali Gaas ayadoo taasi lagu joogo oo deegaanka wax u soo baxay inuu yahay deegaanka Daarusalaam waxa dhacday in xilli dhow ayadoo arintaasi la tixgelinayo lana tixraacaya inuu yimid agaasimaha wasaaradda xanaanaha xoolaha nooguna yimid deegaanka Daarusalaam wuxuu cadeeyay agaasimahaas noo cadeeyay xilligaasi in deegaanka Daarusalaam xilligii hore wixii u soo baxay maxjarka uu ansaxay shaqo degdegana laga rabo in laga qabto laga howlgali doono waqti dhow Faarax Maxamed Aadan Siciid Cismaan Cali iyo qaar kamid ah odayaasha deegaanka ayaa ka warbixiyay sida ay uga xun yihiin arintaasi waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaanu baaq u diraynaa maamulka Puntland dawladda Puntland hay'adaheeda ugu sareeya ee dawliga ugu horeeya madaxweynuhu iyo madaxweyne ku xigeenku baan waxaan u diraynaa baaq dheer baan u diraynaa waxaan uga diraynaa baaqa cadaalad darrada arkiwaaga gefka musuqa cad ee xambaarsan corruptionka cad xambaarsan baan uga diraynaa baaqa ummadda Puntland iyo reer Soomaaliyeed iyo miidiyaasha waxaan u sheegaynaa cadaalad darrada ninkaas ku kacay in aysan qaadan dawladda Puntland xukuumadayada ee wasaaradaha kale madaxweynaha Cabdulla Ali Gaas aad baan u salaamaynaa fartiintayadu waa fartiintii shacabka Puntland waa fartiintii shacabka ummadda reer Galdogob iyo degmada Galdogob xisaabtankii dadku xisaabtaba hayay oo qolof walba waxay doonayso nasiibkeedu uu siinayay oo markaas uu haystay dawladdii Faroole sidii maamulkii hore iyo ninkii iga horeeyay u sheegayba waxay u tageen dadka beeshaanuhu inay helaan maxjar iyo kastan oo ay asaga ayagu nabadgelyadooda iyaga dawladdu iska kaashadaan sidaas la isugu daba dhigay xooluhu ka nasan karaan iyo wajahadii ugu habboon yihiin baa loo dhigay waxa la yiri aynu ka rarno maxjarkii Daarusalaam oo waxa maanta Suudiga loo taagan yahay aan u tusaaleynayna oo ku doonaynaa cadaaladda iyo midnimada oo aanu qayrada dheer u diraynaa masuulka ugu sareeya Puntland haddii uu raalli ka yahay oo asagu soo dirayna ha u daayo meeshuu u soo raray Cabdullaahi oo Fardacune haddii uu cadaalad yahayna meeshii cadaaladdu aragtay oo intaasoo sahan oo hore aragtay oo madaxweynaha asaga ka horeeyay arkay ha u soo diro oo la dhagax dhigay oo dadkii ku hawlgalay oo ku sugahayo ha ugu diro oo ha ugu diro waxaanu leenahay madaxweyne diid waxa uu sameeyay wasiirku diid baan ku leenahay Maxamed Cumar Afdhub wararka warbaahinta caalamiga ah ee SBC degmada Galdogob